ودي وسنا تيك توك أنا وصل قال واي لايف برضه العقوة على العكس هذا وما تبغى هوا وقادش فهمت لكن وجهنا dad saxan ku raadiyo wajina dad kale laakiin sababta macna live aan TikTok aan ugu soo geli waayo waxay tahay waxa laga yaabaa inaan xanaaqo qof bini aadan ahay aflagaado dhici karto khalad inuu iga dhaca dhici karto waxa dhici karto yani qofkii baasha asla ciyaarayna baasha went too far yani baasha TikTok ay ka baxdo real life ka tagto marka السلام عليكم دمان أصحابك وحرن channel كانون تي في وعاول كان لفدية فنان كعان كجيزي بوي سومالي ذو يقانان جيزي كسودو channel كانون تي في kusoo waan ku dhawahay janaalka nuuna khan saaxiibkayga هديات aad iyo aad waan ku dhawahay sax marka cawada waxaa waaye waxa uu gudagadaynaa barnaamijkeena su'aalaha su-aasha ugu horeyso magacaaga saxda ah oo saddexan jiisi magacaygu saddexda oo saxda waxaa waa Cabdiraxmaan Cali Hubey Cali Xuwey fanaan jiisi geesiga birta ee gala dhirta anakoo sii wadanayna barnaamijkeena qaaska waxaad noogu warbixisaa halka aad ku dhalatay eerka aad soo martay iyo waxbarashadaada maadaama ay jiraan taageerayaal badan oo wax badan inay ka ogaadaan rabaan noloshaada horta aniga waxaa ku dhashtay Sacuudi Carabiya ku dhashtay aad iyo waan soo gudbay waqti aad u yar 6 sano aan jira Soomaaliya soo maray sax waqtiga ugu badan aan ku koray kurinadeyda iyo wax garadkeyga aragtida South Africa ku qaatay aad iyo haddaan dhaho nolosheyda waxyaalo badan aan ka sheegayaa yani waxaan maleynaa waqtiga inuu dheeraanayo laakiin markaan ku soo goobo nolosheyda intaba waa soo maray dabaqada hoose dabaqada dhexe dabaqada sare anigoona doortay inta yani ninka raggan wuxuu ku fiican yahay maano inuu nolol kala duwan soo arko nolol adag soo arko intuu yar yahay soo hadhow kaleeto ugu survive garoobo marka uu weynaado sax so I choose to be that way inaa yani aan familka wax yar ka soo fogaado aad iyo yani adduunka aan iska dhiciyo jibhad adeegana hagaag su-aasha xigta ma jiraan dad kula xifaaltamo sideese uga falcelisaa nin xifaaltanka way jiraan dad ila xifaaltamo marka xifaaltanka labuu ka leeyahay xifaaltan waxaa jira kii fanka kan fanka midka fanka wuu jiraa kan fanka kale dad waxaa jira ila xifaaltamo I don't think like inaan arko hadda dad ila xifaaltamayo fanka dhinaciisa kaleeto laakiin dad isku dayaya way jiraan aad iyo marka saasoo kale ay imaato waa dareemi kartaa qofaa maanta isku awoodaadan ahayn waa iska ignore garaynaya oo keliya aad iyo dhanka kale hadday imaato dad inay ila xifaaltamaane waxaan jeclaa qofka hadduu hal talaaki isu gudbo inaan hal dhudhun u gudbo fahanta hal dhudhun hadduu isu gudbana waa inaan hal mitir u gudbaa yani intuu geysta inuu laba jbaarkiisa xitaa waxaa jeclaa qofka markuu aniga aggeyga soo galo oo isku dayo inuu dhibaateeyo inaan dhibaato ka badan ase u geysto oosan ogaan laga yaabo 5 sano kadib inuu ogaado waxa u geystay fahanta saasaa jeclaa kadib safarin oo noqdo qofka la dhigto aad iyo aad hagaag fanaan jiisi su-aasha xigta marka la eego soomaalida raabarada ugu caansan iyo waxaad uga jirtaa lambarada ugu horeeya waxayna heesaaga raabka aad u soo jiitaan qaybo kala duwan ee bulshada wax yar ma noogu warami kartaa aqoonta aad u leedahay heesaha raabka adoo nooga soo bilaabayo halka aad ka soo bilowday soo gelista heesaha raabka run ahaantii horta waa su-aal aad u qurux badan soo gelidda heesaha raabka waa anigoo yar aan kusoo biray raabka waxaa kasoo bilaabay freestyle South Africa markaan joogay waxaa jirta yani in lasbalansado aad iyo lasbalansana brother stageka la koraa mikrofoonka la qabanaa waa lasdhaqaa micnaha caaya ibliska dhiga oo raab aad iyo ma fahanta aad iyo stagekaasa soo maray Soomaaliya imaaday Soomaaliya markaas waxaa waaye waa wax codka iga qabtay muusiga iyo maysan jirin aad iyo adi bacda struggle waan helay oo codkii wixii dhan waan helay oo codka inaan laga qabtay oo muusigii wixii dhan aad iyo waxaa garab igu siiyey maasha Allah saaxiibkeyga CCJ allaha oo jooga kaaraan ninkii yaqaano salaamada agteeda degan yahay sidoo kale Star Music Studio Umar Raab legendary mailo saaxiibkii ala kiib sidoo kale dadkii garab igu siiyey sidoo kale marka waxaa waaye waa stage badan soo maray waxa waaye aan ilaa heerkan aan ku soo gaaray idoona ahayd hobbigeyga aan jeclaa mar walba inaan sameeyo waxaa jeceshaana waa ogtahay inaan way around hadda jidka oo ka xiran jid kale ku dayasana ku samaysan aad iyo aad mar kale aa u laabto dhanka waxbarashada Jizi Boy halkaad ka gaartay halkaad ka soo bilowday iyo maanta meeshaad marayso horta waxbarashada waxaa kasoo bilaabay si saxda ah dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare batch 2 ah master 2 ah alxamdulillah haddana waxaa waaye waa dhimay gabadhooda waa ka dhex baxnay gabadhii aad maraysaa waa dhammaadaba hadda alxamdulillah
hagaag Jizzy Boy maadaama aad tahay aqoon-yahan marna fanaan ah maxaad ugu talin lahayd fanaaniinta da'da yar ee soo galaya fanka raabka kuwaasoo laga yaabo inay wax badan aysan fahansaneyn fanka qaarkoodna ay isticmaalaan erayo xunxun iyadoo ognahay in fanka uu ka mid yahay waxyaalaha bulshada lagu wacyigeliyo horta niyo dadka qaar carunkee waxay raabka aaminsan yihiin laakiin raabka waa message fanka ka mid yahay dadka qaar waxaa laga yaabaa xitaa raabka dhan waxay barteen dadkeena Soomaaliyeed I think like 2010 iyo 15 16 wixii ka dambeeyay ilaa hadda miciisa raabka ma fahansano aad iyo dada waxaa u maleeyaa raabka caaylo inuu yahay marka dadkaas caayda raabka dhahayo raabka caaylo ma isticmaalo aflagaada ma ahan sax dadka bulshada lagu dhiirigeliyaa aad iyo masjida lagu dirayaa oo yacni dhalinyarada lagu kicinayo sax waa lagu guubaabiyaa aad iyo waxaa lagala dardaarmaa lagu wacyigeliyaa waxyaalaha xun si loola tacaamulo aan ku dhayda music waxa usoo galna ma ahan inaan living aan ka samaysano nolol ma ahan just waxaa usoo galnay laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay hadda dhalinteena badanaa waxay dhegeystaan heesa ay dhegeysan jireen oo yacni ajnabiga ah taasoo aflagaado iyo caay iyo marna habaabis ay ku jirto sax saa yacni ugu bedelno Soomaaliga ayinkana piif ahna ay u dhegeystaan second thing in luqadeena aan ku horumarino yacni dadka qaar xitaa ayinkoona isfahansanin waxaa laga yaabaa si toos in raabka ugu cadamaya caadi waa ku caytami kartaa laakiin si dadbana qurux badan mar walba aad iyo يعني أنا كي يقانو فهمي كرا إنه فهمه لكن لما يذكر تينيج كإني فهمان وقابدر يعني واحد ما تستيشن راديو ولا بس يدي كرو كل شيء اللي ولاي كرو ساس أي في أنا على أصلا يعني مركو حلي لاي اللي هذا رابك سوق ليسو اسكو ضي رابك كنا فهمتان معه وكلي وهل ذكرتها وإيش ذكرتها معه أريا اسكو ذكرتها معه هذا حلقة واحد لأن قار هذا أو ضد أملايان إن رابر رأيهين لكن ولي راب كود أوسم بيرفكت إسنهم لكن ما كان أنا أركن أصلين هو قف كان رابر رواي ما أها فهمت aad iyo marka waxa waaye shuruuci badan oo leedahay waxyaalo badan u baahan tahay in laga bedelo qofkan waxa muhiim ah inuu wixii uu fahmo yani topican uu qaadanayo qabka wax uu isticmaalayo waa inuu fahmo hada laakiin marka qof walba caana raba inuu ku noqdo wixii uu sameeyo dibkeeda leedahay marka asli ilaahay raabka qofna ku weerarin oo ku aflagaadeenin يعني هذا أفلقادين إذا ما هذا قف ما تأسقف ستين رابر أديكو كلت يعني تالنت أديكو أفلقادين قف كسيد ببن aha أنا وحودة عيسى دنك كلته هلا يحلا باش بكل المعنى أنا إذا معنى ديري جلست قف كنا لا ليش aad iyo أنت صار لا مثلا غير وأنا كفر سلام وأنا اسكت يا وح أنت إني فاهمان كذب يعني أنت قفل بما أنت قفكر وقضي يصير حواي laga fiican ولا في عيان aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay waqtigaadna siisay fanaan Jizzy su'aal muhiim ayaan ku weydiinayaa taasoo noqonaysa ma tihid fanaaniin iyo dad caanka ee TikTok live ka raadiyo qarashaad iyagoo laga yaabo inay sameeyaan waxyaalo anshax xumo ah. marka maxaa sababay inaad meeshaas wax ka raadin weysay adiga horta waa su-aal aad u muhiimsan way jiraan dad yani tiktok isticmaala hobigooda ay tahay yani maanta arsaaq ka raadiyo yani si wax ugu soo kordhaan laba mid